wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in deegaanka la yidhaahdo maalmaas oo hoostaga gobolka Puntland halkaasi lagu xiray dukaamo aad u badan kadib markii halkaasi ku xanuunsanaaday cunug 6 jir ah oo waxyaabo macmacaan ah kasoo gatay dukaamo ajaanib ay leeyihiin, dukaamo Soomaali ay leeyihiin iyo kuwa Ethiopian ay leeyihiin iyo kuwa weliba ajaanib kale ay leeyihiin ayaa aad loo xiray. Dowladda Koonfur Afrika ayaa boolis badan u tababaray halkaasi si xiisad loo dejiyo. Dowladda ayaa moodaa inay waxyaabahan sidii uga hortagi lahayd ay sameynayso. Wali dowladda Koonfur Afrika ayaa aad ugu amaanan tahay waxyaabihii dhici karay inay baajisay sanadkani. Haddana weli waxaa muuqdo in dadku ay kacayaan isla markaana waxa ay rabaan aan la ogeyn. Hadda dadku South Africaanku waxay dalbanayaan oo keliya in dukaamada la xiro, wax ma boobayaan, waxna ma dilayaan sida hadda la sheegayo. Waa wararkii ugu dambeeyay 24 saac soo dhacay. Dhanka kale wararka aan koos ku helayna waxaa ka mid ah booliska isla gobolka Puntland ayaa waxay galeen dukaan store room oo ay leeyihiin Ethiopian oo ay kasoo qabteen sigaar sharci ah iyo waxyaabaha skinka lagu bedelo oo dabcan South Africa aad uga mamnuuca. Dabcan Ethiopianka waxaad moodaa waxyaabaha ajaanibta lagu sheegayo inta ugu badan inay ayaga mas'uul ka yihiin, dad aan inta badan waxna fahansanayn, waxay rabaan iska gado oo lacag u muuqato. Xitaa marmarka qaar warbaahintu ay kala qaadaysa ajaanibtu ay leedahay Ethiopianku waa kuwa kaliya ee kuwa kada waxyaabaha qaldan ee counterfeit-ka iyo weliba waxyaabaha sumaysan ay leeyihiin. Waa loo daatay, markii loo daatay waxyaabihii la soo arkay inta badan South Africa waxyaabaha la isku cadeeyay waxyaabaha jirka lagu bedelo waa ka mamnuuc, waana qalad meel ka keeneen lama yaqaan. Bal fiidiyowgan daawanayna. Chego boy. Ubu brigade. Ethiopianka ayaa moodaa in wuxuu ka daro uu yahay inta badan dukaamada marka loogu tago kulli waa wada sharci la'aan oo Soomaalida inta badan waxyaabahaas dukaanka la xiriiro nadaafadda iyo waxa dhacay in lagu qabto mooyee inta badan sharci la'aan waa yartaa Soomaali lagu qabto. Ethiopianku madax adeeg waxay isku darsadeen iyo ayagoo sharciga dalka aqoonin. Bal sheeko kale ayaa jirta haddana isla Ethiopiankaas naftigooda ayaa waxaaba dhib ku hayaan oo hanjabayaan leeyahay dadkii guryaha iska lahaa oo ay leeyihiin dukaamada noo rejistareey oo qaab darre u laadaan. Ayagu kama aha hadda hanjabaad ama wax xumeyn kama aha, laakiin hoogaa aqoontii aqliga sida ka noqdo oo keliya waa luqad qalafsan ay adeegsanayaan, mana aha luqad discipliinka ku habboon. Ayaguna dabcan warbaahinta ayaa soo bandhigaysa dadkii dukaamada guryaha iska lahaa oo ay ka bixi laayihiin u hanjabayaan. Then I said, no, I'm tired of Alex. And then Alex started to shout and say, Mama, I will kill you. You are going to suffer. You are going to eat grass. Another landlord who did not want to reveal his identity is still struggling to have his tenant vacate the premises permanently. The foreign shop owner's container with his stock is still in his yard. He says calls to the said tenant go unanswered. This plaza shop anymore because of I don't want to fight with the community. You see, the children are dying left and right. So if the community, because the community are matline to Abu. So if I say Rada ayay qaataan inay diidan yihiin iyo alaabta kala baxaan qaarkoodna waa dukaamadii waxyaabaha lagu dhintay oo ciyaalkii ku laadeen laga soo gaday. Marka weli sharciga ayaa la tiigsanaya oo dad wanaagsan, dadka warbaahinta kasoo muuqda waa dad wanaagsan oo sharciga la tiigsanayo loo yareeyo wax u qabsada si ay guryahooda uga bixiyaan, balse maba ahaba dad sharci wax ka yaqaan oo nidaamka dowliga casriga wax ka fahmay. waxaa halkaas ku dhaman Soomaalida oo markii guryaha nooga baxay leedahay isla markaa alaabtooda qaato. Inta badan deegaanadaas markay dhibka ka dhaceen Soomaalida iyo waxay qaateen alaabtoodii qaateen, laakiin magaalooyinka Ethiopianka guryihii dadka ay sii dhex jiifeen ba iyagu wax dilo og. Marka waa dad waxaa la leeyahay wax ay fahmaan inay jirinba. saas ay tahayna naagihii iyo gabdhihii meesha ayay iskaga guursadeen ama saaxiibo la noqdeenba, sida aan hadal ku dhigi karno haddii aan si kala dhahno. Gabdhihii ay micnaha saaxiib la noqdeen in la macaamuleen ee xiriir la sameeyeen, habrihii guryaha sidoo kale. Marka welina waa ay bixlayeen oo deegaanka ayay isa siiyeenba, laakiin dukaamadii meeshaas la xiray sida lambaso markii ugu dambeysay hadda la xushay in kun dukaan ka badan la xiray. Kuwooda ayaana u badan dukaamadaasna kuwa dib loo furi doono ma
warbaahinta ayaana mar walba dadkii guryaha iska lahaa ka hadleen oo ay sheegeen in dadkan wax dhaafiyay ay leeyihiin, waxayna ku qasbanaan doonaan in xoog lagu dhaqaajiyo sida wararku qaar ay sheegayaan. Lawyer